jaamacadda Cirfaan ee diiniga ah oo dhismeedu ka socdo degmada Arabsiyood ee gobolka Gabiley isla markaana ku jirtay wajigii u dambeeyay ee gabagabada dhismahaasi ayaa maanta Jimcaha waxa ka howlgalayay farsamo yaqaanada degmada Arabsiyood qaar kamid ah kuwaasi oo xoogooga ugu tabarucay inay kaga qayb qaataan jaamacadda diiniga ah ee Al-Cirfaan ee degmada Arabsiyood isuduwaha diinta iyo awqaafta degmada Arabsiyood isla markaana kamid ah bahda Al-Cirfaan oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahadnaqay farsamo yaqaanada degmada Arabsiyood ee maanta Jimcaha xoogooga ugu tabarucay inay kaga qayb qaataan jaamacadda Al-Cirfaan geesta kale isuduwaha diinta iyo awqaafta waxa uu mahadnaqay duqa degmada Gabiley iyo golayaasha deegaanka kala dambeeyay oo ku sheegay inay qayb laxaad ka qaateen dhismaha jaamacadda Al-Cirfaan ee diiniga ah ee degmada Arabsiyood ee gobolka Gabiley geesta kale waxa uu mahad celiyay haween degan degmada Hargeysa oo iyaguna zibir kaga qayb qaatay maalmihii la soo dhaafay dhismaha jaamacadda Al-Cirfaan ee degmada Arabsiyood iyo guud ahaan qof kasta oo ka qayb qaatay dhismaha jaamacadda Al-Cirfaan isla markaana ku taageeray maal iyo fikirba sallim maanta Jimcaha waxaan taaganahay jaamacadda Al-Cirfaan oo ay ka socoto shaqo aad iyo aad u ballaaran oo wadika arkaya jaajuurkii baa laga shaqeynayaa waxa si tabaruc ku shaqeynaya wastaadada Arabsiyood dhammaantood ayaa tabaruc ku shaqeynaya iyadoo maalin Jimco ay tahay xoogoogii ayay ugu horeen wax kale oo shaqeynaya macallimiintii waxa shaqeynaya ardaydii waxa shaqeynaya waalidiintii dumarkii alxamdulillah tacaawanu cala albirri wattaqwa wala tacaawanu cala al-ithmi wal-cudwaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bulshada reer Arabsiyood oo maanta si baaxad leh uga qayb qaadatay jaamacadda ustaadiinta macallimiinta aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan aad iyo aad u salaamayaa cid kasta oo u ducaynaya cid kasta oo ka qayb qaadatay jaamacaddan dhismaheega iyadoo la soo koobi karayn waxaa maalin dhaweyd dumar reer Hargeysaada oo sibir keenay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa gudoomiyaha gobolka Gabiley Maxamed Amiin oo jaamacaddan qayb libaaxa ka qaatay oo ka howlgalay haday shidaal tahay xallo wixii shidaala ee ku baxayay baabuurta iska rogooyinka lagu soo gurayo neesta iyo ka qayb qaatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanu ducaynaynaa isaga golihiisa deegaankaaba Allah idin barakeeyaan leenahay Maxamed Amiin waxyaalo badan oo la koobi karo gobolka ayuu ka fuliyay jazaakumullahu khayran jaziilan baan leenahay waxaan fariinteeda ugu dambaysiinayaa cid kasta oo jaamacadda khayriga ka qayb qaadata waa loo ducaynaynaa waa jaamacad waqfiya waa jaamacad bilaash lagu dhigto waa jaamacad aan wax lacaga lagaba qaadin haba yaraatee dhiskeegu ma maqnaa horana waa loo dhiganayay imikana waa taa dhiskeegu socdo waa la dhiganayaa aad iyo aad baan dhammaan u salaamayaa bulshada reer Soomaaliland meel kasta joogaan sallallahu alayhi wasallam Musa Xuseen Xasan RTV degmada Arabsiyood ee gobolka Gabiley.